magacaygu waa Cabduuli Nadaara ku soo dhawaada mowduuceena maanta. haddii aad ku cusubtahay kanaalka fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xiran channelka hoyga bulshada. maanta waxaan qaadanaynaa muhiimadda waqtiga uu leeyahay. ummadda islaamka guud ahaanteed waqtigu wuxuu yahay waxyaabaha Allah siiyay kuwooda ugu fiican, balse mowduucan waxaan ku eegaynaa faa'iidada waqtiga oo la ilaaliyo iyo sidoo kale diinteena suuban waxay ka tiri. diinta islaamku waxay maharaysay waqtiga iyadoo ka fiirisay dhinac kasta oo Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuuna bini'aadamka ugu mana sheegtay nimcada weyn uu siiyay sida ku cad aayadda 33 ee suuratu Ibrahim. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. معناها سورة الله وحيدين فديي إذن سيئي قرحة habeen iyo maalin iyadoo nimcadeedu tahay mid soconaysa. sidoo kale Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku dhaartay qaybo kamid ah waqtiga sida habeen, maalin, aroor, barqo iyo casar. haddaba dhaartaas oo ku tusinaysa ahamiyadda uu leeyahay waqtigu mar haddii Allah ku dhaartay sida ay sheegeen mufassiriinta, Allah subxaanahu wa ta'ala shay kamid ah oonkiisa haddii uu ku dhaarto wuxuu uga dan leeyahay inuu indhaha addoomihiisa ku soo jeediyo isla markaana ku baraarujiyo naxfiga weyn ee ku jira shaygaasi ugu dhaartay. marka hadda inta waqti haasato waqtigaada uga faa'iideyso daacada Ilaahay. maxaa yeelay waqtigan aan haasano waa jaanis, waa fursa aad iyo aad u weyn wey. hal saacada wax kale iska daa haday ku dhaafto ma soo noqonayso hal saacada ma soo noqonayso. sidoo kale axaadiista sharafta leh waxay cadeynayaan qiimaha faa'iidada waqtiga. su'aalaha afarta ee aadanaha la weydiiyo maalinta xisaabinta qiyaame laba kamid ah waxay ku lug leeyihiin waqtiga sida ku cad xadiiska uu wariyay Mucaad bin Jamal. su'aalahaas afarta waxaa ugu horeeya cimriga Allah ku siiyay maxaad ku dhameysay si guud. su'aasha labaadna waxaa laga weydiinayaa dhalinyarnimadaada waxaad ku dhameysay oo si gaar ah maadaama waqtiga qofka ugu xoog badan uu dhalinyaranimo yahay markaasi. sidoo kalena shacaa'irta islaamku waxay kugu baraarujinayaan qiimaha uu waqtigu leeyahay. wal fajri wa layaalin 'ashr wash-shaf'i wal watr wal layli idhaa yasr. ugu dambeyntii walaalkayga daawanaya muuqaalka, dadkii hore ee wanaagsanaa waxay dhihi jireen salaadaha waa miisaanka maalinta, jamaacaduna waa miisaanka isbuuca, ramadaankuna waa miisaanka sanadka, xajkuna waa miisaanka cimriga. walaalkayga muslimka ah mar labaad adigoo mahadsan mowduucan la sii wadaag saaxiibadaada kale si ay uga faa'iideystaan waqtigu faa'iidada uu leeyahay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mowduuca aad ka heshay fadlan like noogu dhufo dibna subscribe noo saar. waana mahadsan tahay. fi amaanillaah. fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada. waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا